haatana Somaliland ku dhawaad 30,000 oo arday ah ayaa waxay u fariisatay dugsiyada hoose iyo dhexe imtixaanaadka Somaliland. wariyaha VOA-da Xasan Maal Didir ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa. imtixaankan sidaas loogu bilaabayaa maanta waa aragtaan saasaan u jeexnay imtixaankiina waa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo si rasmi ah u daahfuraya imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexe soo ay u fadhiisteen ku dhawaad 30,000 oo arday oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa VOA uga warbixiyay qorshaha ka wasaarad ahaan ay u dajiyeen imtixaanka sanadkani. annana guideline badan oo ay raacaan ama shuruudo iyo qaab ay wax ku dajiyaan baan u dhignay workshop iyo seminar hay galeen imtixaanka intaan la ka hor wuxuu uu ku salaysan yahay imtixaanku ardada wixii loo dhigay iyo wixii laga filayay inay yaqaaniin ay bartaan. qaar ka mid ah ardayda imtixaanka u fadhiisanaysay ayaanu wax ka weydiinay rajada ay qabaan. ahna foorarka sanadkan baxaya ardayda dhammaan waxaan u rajaynayaa guul Ilaahay inuu imtixaanka u fududeeyo. ardaydayda gaar ahaan waxaan guul u sii rajaynayaa ardayda dugsiga Salaar Rashad Secondary School. waxaan ka mid ahay ardayda fasalada afraad ee usaaka imtixaanka qaranku u bilaabmayo dhammaan ardayda fasalada dhexe eerarka iyo guud ahaan fasalada afraad waxaan u rajaynayaa guul u artaa. waa mahadsantii. Xasan Maal Didir, VOA, Hargeysa. haddaba sanadkan ardayda ka qayb galaysa imtixaankaasi waxaa ka mid ah ardayda qaba baahiyaha gaarka ah kuwaas oo loo sameeyay imtixaan gaar ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa isna noo soo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye. ardayda laxaadkoodu dhantaalan yahay ayaa qayb ka ah ardayda 30,000 ku dhow ee maanta u fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee Somaliland. sanadkan ayaa markii ugu horeysay imtixaan iyaga gaar u ah ay u sameysay wasaaradda waxbarashada iyo saynisku. agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qabay wasaaradda Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo sidoo kalena ah macallin muddo dheer wuxuu dhigayay ardaydan oo aan saaka kula kulmay goob ka mid ah goobihii ay ardaydani ku galayeen imtixaanka ayaan weydiiyay tiradooda. guud ahaan 45 arday baa galiyo kala wada duwan. ardayda baahida indhaha kale waa 2 sanadkan dugsiga 8aad inta kale waa dhagool primary iyo dugsi sare ah dugsi dhexe iyo dugsi sare. waxa uu Cabdishakuur sheegay in dadaalada lagu doonayay in imtixaankooda gaar looga dhigo ardaydan ay muddo qaadatay isla markaana wasaaradahan ay u dhammaayeen hirgelinta arrintan. haddaba ardayda baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan kuwa indhaha waxba ka arag iyo kuwa aan dhagaha waxba ka maqali ma kala eegtaan imtixaanka. sideese ay ardaydan uga nabadgeli karaan inay kala eegtaan? macallimiintii afdhagoolka yaqaanay baan waxaan sameeyay ayaan anigu halkan ku soo kordhinay. marka macallinkii kale ee afdhagoolka garanay wuxuu moodayaa inaanay qishayn iyagoo aamusan bay dee fara isticmaalayaan. marka tusaale ahaan imika waa sidan haddii markaa la goobayo wuxuu oranayaa dee goob iyo wuxuu israaciyo goob marka uu aamusan yahay. macallinkii markaa afdhagoolka aqooni isagoo aan lala hadlin ayaa wixii taanka isku wada mid noqonaya ama wada dhacayana wada baasi. marka si taan uga hortagna anaguna qayb baan ka nahay wasaaradda waxbarashada waxaan keenay macallimiintii afdhagoolka garanay weli waan kala bedelay. macallinkii macnaha iyaga wuxuu dhigi jiray maahay macallin kale oo afdhagoolka garanayaan si markaa qishku yaraado. qolada baahida indhaha kale inta badan ma qishaan oo iyaga waa loo yeerinayaa oo macallin baa hor jooga oo markaa iyaga kuwaas dhibaatana ma hayn laakiin qolada dhagoolka way leeyihiin. Naciima Mahdi Cabdi waxay ka mid tahay ardayda baahiyaha gaarka qaba ama aan maqalkoodu dhammayn ee maanta u fadhiistay imtixaanka. waxaan weydiiyay sida imtixaanka u arkaan iyo waxa uu kaga duwan yahay imtixaanadii hore ay u gali jireen ee ay la gali jireen dadka laxaadkoodu dhan yahay. waa tan Naciima oo ka turjumaya Cabdishakuur Maxamed. markii hore imtixaanka waan fahmi waayay adayg buu ahaa. imka alxamdulilah imtixaanka fudud ayaa la siiyay wax waan fahmayaa. markii hore eerka ma fahmay markii dambe la caawiyay markii ma baran Daawud ayaa aad noo caawiyay gudoomiyaha imtixaanaadka. markii hore eerka ma fahmin imikana laakiin alxamdulilah Daawud uu fiican yahay waanu naga naxsan yahay wuu naga caawiyay. waxaan rabnaa fanfan marka dhameeya jaamacadda inaan galno insha Allah. jaamacad ma jiraan noo gaaro dhagolayaasha iyo shaqo inaan labadaba helaan waan salaamaya. waad mahadsantii waan idin ducaynaya. Barkhad Maxamuud Kaariye qubanaha VOA Hargeysa.